السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كليب كان waxaan rabaa maantay inaan kula wadaago dhibaatooyinka dhul boobka ah oo ka dhaca Muqdisho inta badan. Waxaad ku arki doontaan dad madax ah oo madax ahaan jiray oo ka mid yahay Tarsan oo hadda ka hor ahaan jiray duqa magaalada Muqdisho. Waxaad arki doontaan xildhibaan isaguna caan ah oo Muqdisho laga soo doortay oo dadkiisii horkacaya iyo dad kale oo shacab ah iyo masaajid la duminayo. Waxaan ku bilaabaynaa kilibka ugu horeeya oo aan ka baranayno aan ka arkayno aqoonta shuruucda Soomaaliya u degsan heerka uu ka joogo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo waraysi hadda ka hor la waraystay iyo nin kale oo la yiraahdo Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ka warramaya sharciyada ka jira dhulalka iyo sida loo gadi karo dhulka dawladda iyo in dawladdu ay dhulka leedahay laakiin loo baahan yahay in la maro sifo sharci ah in loo maro. Marka kilibka ugu horeeya ayaan dhageystanaynaa waa isku xigid door soo xiran yihiin dhageysta oo shacabka Soomaaliyeed waxyaalaha haysta oo dawladdan hadda maanta gabaabsiga ku jirta ay ku wado shacabka Soomaaliyeed khaasatan magaalada Muqdisho halkan kala socda kilibkan Somali Pacific. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ku soo dhawaada kilibka hadda. qarankiisa loo gaday dhulka sharciga dhulka ee sheegaya dhulka in la xaysiiyaan ka raba marka ma jiraan leedahay baad xagee yaala itus waa ma santa wataas haddii hanti dawlad la gadaayo waa in la naadiyo waa in hay-addi lahayd soo sheegtaa inay ka maaratay qoraal ka soo dhigtaa waa inay kusoo socodsiisaa guddiga iibka qaranka waa in wasaaradda ganacsigu ansixisaa oo saxiixda wasiirku saxiixo waa in hanti dhowrka lagu wargelshaa koob laga sii kadibna raadayaha dawladda in la geeyo 3 bilood la naadiyo dhulka ku yaal number 4 oo dawladdu leedahay oo noocaas cabirkiisu saasay dawladdu waa iibinaysaa 3 bilood marka la naadiyo dadkii soo codsaday qiimihii ay soo codsadeen qiimaha ugu badan in la gado markaas dhulka dawladda ana waxaad igala hadashaa sharci ma lagu xadgudbo wax sharci lagu xadgudbina leedahay hadii la sheego sharci lagu xadgudbo waan toosinayna ma la haysiyo dhulkan oo radio Muqdisho warbaahinta laga sii daayo waxaan rabaa hadii la iibinayo su'aalahaaga waxay u baahan yihiin inay ku dhisan yihiin hadaltan waa soo hadal qaaday in madaxweynuhu marka doorashooyinka hadlaysay qof codaysan uusan haysan oo dadka barakiciyay dawladdu tan iyo markii ay timid waxa socday arinta dhulka dadka laga kicinayo baahid dhul oo dawladda ay dad deganaa u kaciso dalka ma ka jirtaa maxaa sal u ah 3 arrimood aan u kala saarno horta dawlad marka la yiraahdo dastuurka waxa ku qoran dhulka dhan dawladda leh even private ka dadku leeyahay dastuurka wuxuu leeyahay dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya dawladda leh dawladda dhulka ayada leh laakiin si sharci ku leedahay qofka muwaadinka hantida uu leeyahay dhula amba wax kala dawladdu wala wareegi kartaa laakiin in same time dastuurka wuxuu leeyahay magdhow u dhigma waa in qofka la siiyo waa xaq private kan kala wakii private dadana guriga dan waxa ka soo gashay dawladda waa inay qaadataa laga gorgortamo laakiin muwaadinka gurigaas kale waa in la siiyo taas waa mid bidaba kan dawladdu ay leedahay horta dawladdu dadka Soomaaliyeed oo dhama ah xukuumadda markaas jirta laga hadlaa maayo sida darteed dhulka dawladda waxa loo leeyahay dadkoo dhan baa leh dhulka kan dhala doona ka dhintay kan hadda jooga kan jiran kan fayaab kan taajirka kan faqiirka oo ka dhaxaya sharci ayaana jira dawladdu dhulkeeda waa gada kartaa inaan kala saarno waa marka qodobka labaad malihi mana dhihi karo dawladdu dhulkeeda ma gada karto xukuumaddu ma gada karto ma dhahay xukuumaddu dhulka waa gada kartaa si sharci ku gada kartaa laakiin sharciga dhulka oo lagu lahaadaa wax soo baxay 1900 yani iibka qaranka wax la yiraahdo jiro guddiga iibka qaranka amba sharciga iibka qaranka oo baarlamaanka bariga horena kacaanka xilligiisa la sameeyay haddana xilligii 2014 xilligii xasan hore baarlamaanka Soomaaliya uu ansaxshay labadiisa ayaan saxshan baajir sharcigaas wuxuu leeyahay dawladdu hadday u baahato dhulkeeda inay gadato
waxay maraysaa guddiga iibka qaranka kunturaadaha ay dowladdu bixinayso iyo hantida dowladda laftirkooda la gadaayo guddigaas ayaa loo maraya sida sharcigu sheegayo artiklada guddigaa jiriya waa sharciyan warqad ahaan waa u jiriya waa kanaa la ansaxshay baarlamaanka Soomaaliya ansaxshay tiraday cadadka ay ku ansaxsheen xataa tirada intay ahaayeen waa ku qorantay inta ka aamustay inta ansaxsay isku qorantay sharcigaana waxa waaye 1978 oo soo baxay 19 bishii 10aad 78 sharciga dhulka iibka qaranka iyo sida loo gaday hal warqad oo kamida ama hal sharci oo kamida looma marin marka taas waa mid la isku haystaa horta inaan fahamno waaye laba khalad yaan isgalin dawladdu dad badan waxay ku qaldan yihiin dawladdu ma gadi kartaa waa gadi kartaa dhulka dawladdu waxay ku qaldan tahay sharci la'aan ma gadi kartaa tusaalaha wuxuu leeyahay haddii hanti dawlad la gadaayo waa in la naadiyo waa in hay-addi lahayd soo sheegtaa inay ka maarantay qoraal ka soo dhigtaa waa inay kusoo socodsiisaa guddiga iibka qaranka waa in wasaaradda ganacsigu ansixisaa oo saxiixda wasiirku saxiixo waa in hanti dhowrka lagu wargelshaa koob laga sii kadibna raadayaha dowladda in la geeyo ee 3 bilood la naadiyo dhulka ku yaal number 4 oo dowladdu leedahay oo noocaas cabirkiisu saasay dowladdu waa iibinaysaa 3 bilood marka la naadiyo dadkii soo codsaday qiimihii ay soo codsadeen qiimaha ugu badan in la gado markaas dhulka dowladda dabeetana hanti dhowrka qaranka iyo xisaabiyaha guud ay labaduba saxiixaan kadibna ganacsadahaas oo lacagta bangiga ku shubo rasiidkana saas waata dhulka lagu wareejiyo sidaas kaliya lagu gadi karaa wax kastoon saas lagu gadan marka oo sharcigaas aan loo marin waa wax baatil oo la dhacay waa gadid ma hadda sida wax socda marka sida wax socda intaas oo dhan waa balmarsantay intaan oo hadda jawaariya saxiixay sharcigan baarlamaanka Soomaaliya ansaxshay xasanka laftirkiisa saxiixay ra'iisul wasaare xilligaas oo Cabdullaahi saxiixay iyadoo la raacayo sharcigii hore dhulka 78 soo baxay iyadoo la raacayo la waafajinayo ayaa baarlamaanka hadan la marsiyo parliamentary laga dhigay yani systemka in ay cadeynayaan dhulka ay dawladdu ka maarantay ay gadayso laakiin dhulka hadda inta badan dadka laga barakiciyay dawladdu waxay leedahay waa u baahanahay hay'adihii lahaayeen raba inay dhistaan sida dhulkii dibdamiska kale dibdamiska mindasi dawladdu way la wareegtay dabcan ma dhisin ana ku sheegay horta dadkan Soomaalida ee dhulkan degan dantu ku qasabtay qodooda dawladda mas'uulka ah dhulka mas'uulka tahay dadka waliba dadka qaalisa hadii dad iyo dhul la yiraahdo dadka qaalisa dawladda maarayna looga baahan yahay ummadda halkaas degan inay xataa magaalada meel ka baxsan inta u gado oo cabirtay dejisay xaq u leeyahay waxana loo qaadan karaa dhulkaas in sida la sheegayo hay-ad lahayd ama hay-ad kale dawladeed ka faa'iideysanayso laakiin dambi karaam waxa noqon doona waana la arki doona waana la ogyahay dhulka dadka laga gadan naqana dhulkan waa dad ganacsatada gatay in aan arkaynay anug yar saaka iskool aaday gurigoodii ka tagtay ee duhur ka timiday gurigii la jijibshay iyo hooyadii la xiray ama la garaacay ee soo rogsatay yani waa sawiranta wayna sawirnaa doontaa arrintaas waxa intaas la jira qiyaas wiilka yarka iyo gabadha yarka ee la yiri habeenkii 10 saac markay soo kaceen iridda waxa taagan baawarka booliiska taagano gurigeena inuu jijibsho ayuu u taagan yahay qoyska sidaas lagu wargeliyay carruurta lagu wargeliyay in guriga madaxweynuhu uu soo amray in laga raro dadka jooga ilmahaas cuqdada ay ku korayaan ka mas'uula ee la yiri yani wax mas'uuliyadan la iska saaran meesha madaxweynuhu toos uu sheegay maxaa qosayuri meesha rabana aadaana saaba sheegay taas hadda mad qalsan ma marka yaa dawlad loo yahay marka hadii dadka saas loo dhaqmayo oo yani ka tarbiil la gelinayo iyagoo hurday oo anta ka tarbiil la geliyo ganacsada waliba hadii dawladdu si kale uga faa'iideysay sabab xaq lagu leeyahay dawladda dadku leeyahay dawladdu laakiin ayadiyo shakhsi laga gadayo oo la siinayo lacagtana shakhsi kala qaadanayo ilaan bangiga dhaxal lagu mashaw lacagta uqubada meeshaas ka dhacday yaa mas'uuliyadda iska in shakhsi qaadanayo oo bangiga dhaxal la geeyay lacagta annaga naqaan ada arki doona ayado hotel ku yaalaan hadda maanta waqti badan iska gelimayna dhulkii waxaad arkay dhulkii dabdamiska iyo dhulkii dadka laga kacshay hadii hadda aan aragno dawladdu ku shaqeynaysa waxay ku ekaan doontaa dadka la dayacay laakiin waxay dambi isu bedeli doontaa markii la arko dhulkii dad shaqsiya la siiyay dadka ilmihi ayagoo iskoolka jarana la dumiyay dabeedna madaxweynuhu yiri aniga maxaan dabaqa danista maxaa ka galay iyagu meesha rabana ku yidaanay taas waxa way isu bedeli doontaa
dadkan hadda laga kaciyey xaafadihii ay deganaayeen qaarkood 30 sano ka badan degan yihiin 25 sano burburkii degeen dadka laftirkooda soo xaq looguma lahan maadaama ay ilmihi ku korsadeen inay meel kale ka raadsadaan dowladda xataa waxay leedahay dhulka qaarkood ganacsato u kireysnaayay dadka degan ee laga barakaciyay ayaga meesha kaliya ku deganaayeenbo qofka Soomaaligaas oo laga marba asaga laftirkiisa inuu ugu yaraan sii raadsado maadaama 30 sano uu ku soo intifaacay dowladdu dhulka ayada lahan kuri gorgortan kama jiro laakiin dadkana ayada leh hor dadkan awareness la siiyo dadka dhulka dowladda laga marmi waayay waa in waqti la siiyo oo loo sheego oo la yiraahdo dhulka noocaas ah ee adilaheed ayaa dhisanaysa sidaa darteed 6 bilood 7 bilood 5 bilood wixii uu ku filan dadka qudhoodu qaar baad garaabaya markaa moogta wixii darawdana ayada la arki doona sharciga ayaga la isu deynaa laakiin dadkii in la kiciyo dad kalena wax hantida la siiyo haday dhacdo waa dambi وانا مدة انا قرانين انا مدحونا حسن شيخ وكان يعني دورشان قليا ددوينا دورنا ايه يعني دد دورش لا قربه waxana Soomaalida wax ku mahmaada in shimbiragaada waraf ma tuuro waxaba isdiida aslan awooda dadkan ku celeena aniguna musharaxana dadkina sidaan ula dhaqmaya oo yani habeenkii saqda dhaxan raraya يعني waxay ku tusay inay meesha loo socon in laga raadiyo in loo socon hada dhulka dawladda hadii ganacsato laga gaday qofka ganacsadaha dhulkaas gatay ama lacagta bankiga dhaxageeyo ama sida siyaasiyiinta qaarkood ay sheegaan madaxweynuhu filada uu geeyay oo kaasha u siiyay hadii dawladda xasiiq ay baxdo qofkaas ganacsadaha ah ee dhulkii ama dhistay ama gatay milkiyad hadda haysta sharcigu muxuu ku sameeyaa waxay ku xiran tahay ninka meesha yimaad damiirka uu leeyahay haddii tiimkanu baxaan sidaana ay noqoto dhulkii in dad inta laga kacsho dad la siiyo horta dacwada waa inay ka bilaabato qoladan horta in lagu dacweeyo qoladii saas yeesha horta dacwada leh iyaga laftirka hore sida in cadaalad loo helo waayo oo la dacweeyo la yiraahdo hantidii aad ka qaadeen dadka soo celiya kan gatayna hadda ma badhici karto nin miskiina oo cuuryaana oo waayeela oo dhul laga kiciyay in nin kale oo ganacsataha ay dhisto ee dabaq uga dhisnaado ba dawladda imaan doontaa damiirku ma siin karo sharciguna ma siin karo marka waxaan isleeyahay laakiin marka qofka saxiix madaxweyne haysto oo laga yaabo in xataa loo soo mariyay heedii kale sharciga oo sharciga saxiix ka rabay dawladda maxay sameynayaan ma haddana ganacsiyada in la xooga may noqonaa asna sartiisa cagaf la geliyo maya waxa madaxweynaha laftirkiisu dhulka ma leh حسن الشيخ حمر ود جناجري قريه يدبقيه يداران كم لهين ما نقدر كرين ده أكتسين وكيالين مدحونه هذا الشرع مريض الشرع جواب الشرعي أو سجل القوة الرقمية هذا الشرع مريض لكن معنا ما سمينا اسمه هذا حسن العقيقات أنا جميع الله داعية هذا قاعد ضد عايشة الله داعي العقد هذا حاسس قصي سوى اللي وأنا لا شيء بدنا لا شيء شرع جوايا غنا لو كان دولة إسكال قف كان كوسينا محوك كلها ما هذه شرع وكوسيها وأنا ترى هذا شرع يقصي وأنا ترى dadku ka dhaxeeyaa akoon dadka ka dhaxeeyaa lacagta ku shubta laakiin dad lacagtaada nin siisay ee dhulowsan ka lahayn ka gatay ilan ka ma walahay oo wadan ka dhaxeeyaa waxa gada dayacay madaxweynuhu waa ka xumaa anoo la soo liifay ayaan imid caraysan waan caraysanahay madaxweynaha ayaan fariin u diray oo cod ah madaxweynihii si aad barre haddii la dhaho ma jiro oo haddii la Cabdiqaasim ma jiro maxaa yaa jira marka kii yimaadaba saasuu dhihi kabtanka wuxuu leeyahay amar kama qaadan annaku madaxweyne yaad ka qaadatiin nin ganacsataa oo gaduudow la dhaho ayaa geed hoostiis u fadhiya madaxweynuhu arrintaas wax ka qabo wallaahi inaan wax kaa sheega ma rabo intaasaan soo joogna waxna kaama sheegin inaan wax kaa sheego ma doonahayo inaan wax eeb aad leedahay ku hadlana ma doonahayo laakiin dadkaas in wadanka laga qabto weeyo waxay ugu dhaheen shirkadda la siiyey dhulka waxay ugu dhaheen 11 milyan baan madaxweynaha u shubnay dhahan 11 milyan ayaan madaxweynaha u shubnay dhahan 20 milyan baan hala ka rabaa in baa ugu dhagay telefoonkii ula dhagay askari telefoonkii qorigii buu rabaa inuu ugu dhufto madaxweynuhu sumcadda yaan lagaaga dheelin
mas-uuliyadda yaan lagaaga dheelin ani adaan ku sugahayay waxaan aaminay hadalkaas ad ii soo qortay baan aaminay maanta anaa imid universal in aan ku qabto shir jaraa'id maanta waxaa dhacday duufaantii ayaamahanba ka socotay waddanka ee dhulka la burburinahaya ah ee ganacsato tuuga ah iyo ciidamo ay wataan iyo taliyo iyo guddoomiye degmo ayaa shacabkan u heshiiyey dhul 4 boos ah oo kiiba 25 lagu dhuftay yahay oo ay warshad ku taalo warshadana ay ka shaqeeyaan 40 qof ay ka shaqeyso oo ay ilmahooda ku biishaan ayaa maanta la burburiyey arrintan mid ay socotay madaxweynaha ayaan fariin u diray oo cod ah oon leeyahay madaxweynuhu warshad in dana kale loo burburiye xaq maaha dadkaas in dhulkaas laga badbaadiyaan rabnaa madaxweynuhu ii soo jawaab qoraal yar buu igu soo jawaab uu leeyahay waan ka celinaynaa insha allah haddii baan taagnaa maanta ayaa waxaa laleeyahay waa burburinaynaa waa ayagoo burburinahayaa la isoo wacay marka ugu horreysee masaalix kala gaar ayaa isqabsaday waddankan masaalixdaas mid danaha ummadda u adeegaysa kuma jirto kabtan degma haysta ayaa waxaan ku yidhi war madaxweynahan war ka sugayn madaxweynaha warkaan gaaray warshadaani Chinese ayaa dhisay si sahla looma burburin karo adeerow sug waxaan la hadlay Ibrahim Turki baan la hadlay shalay oon iri madaxweynaha ma wada hadasheen uu dhahay madaxweynaha waa maqnaa maana wada hadlin haddana waxaan u qoray war hal badbaadiyo warshadan hal badbaadiyo intaad madaxweynaha iska arkaysiin hal joojiyo kabtanka wuxuu leeyahay amarka ma qaadan annaku madaxweyne yaad ka qaadatiin nin ganacsato gaduudow la dhaho ayaa geed hoostiis u fadhiya ganacsade gaduudow la dhaho baarkin bay u rabaan yani imagine 40 shaqaale oo Soomaali ah oo ilmahooda ku biisha warshad in baarkin isbitaal loo burburiyo dana gaar ah loo burburiyo adduunka markuu hormarayo wadamada markay hormarayaan waxay ka bilaabaan warshadaha yaryarka ah waddankeena xaaladaas ay u baahan yahay hadda warshadaha yaryarka in lagu badiyo waddanka laakiin warshad yar oo 40 ka shaqeyso in baarkin isbitaalkana baarkin u baahado nin ganacsatada ku jira shirkadda dhulka la siiyey ayaa ku jira oo loo baabi'inayaa arrin qabata ma aha madaxweynuhu waan kula hadlay warkaagaan aaminay waan sugahayay jawaab baan sugahayay jawaabtii waxay noqotay in kabtan degmada hodan inuu dhaho madaxweyne amarka ma qaato yaad ka qaadataa gaduudow geed buu u fadhiyaa gaduudow baan geedka aan ka qaataa amarka madaxweynuhu waddankani ganacsato tuuga ah oon naxariis lahayn oon dadka u naxaynin oo jir naxa aan lahayn xaaraan ku koray oo xaaraan ku bulaalay oo xaaraan ka dhargay kaliyihii wada buurteen iyo dad masaakiin ah taliyaal wiil yaroo taliya laga dhigay qabiil inta lagu soo qoray garaado uusan qaadi karin loo xiray iyo guddoomiye degmo asaguna sidaasoo kale aan weligii shaqayn ee asna meesha la keenay dhulkii la jabinahayaba guddoomiyaha degmada hodan wuxuu ka qaataa intaas waxaa la ii sheegay 15 dhulkan hadda weyn ee la burburiyo warshadan ay ku jirto in uu 15 boos ku leeyahay كل كابتن كان كما قد سنة حدوثا نقول هلين العقب وهلاهيا مركا إن شعب كصومالي ذا مدحوين حسن شيخ بيدورتين قناع ستم الدورن
ganacsata hadday tartan geli lahayeenna ma heleen madaxweynuhu maamulkii dowladda ee dhisnaa structurekii dowladda ee dhisnaa ee ahaa boliis ee lahaa taliya gudoomiye degmo in inta la laaluusho ay amarka ay ka qaadanahayaan oo ayna amarkii madaxweynaha qaadanaynin ama ayna dadkii u naxaynin oo la dhahayn war bal suga war wada hadal baa socdee suga aan la dhahaynin ayna u naxariisanaynin anu meeshaan tegey hadal inaan duubaan damcay bal fiiri maxay qarinahay maxay ku diidaan hadal in baa igu dhigay telefoonkii igula dhigay askari telefoonkii qorigii buu rabaa inuu igu dhufto war anigu waan hadlay waxa dhacay waxaad meesha ka samaysaan sheegahayaa muxuu ku diiday muxuu qars كان وحها ترسن oo wada garanaysan dhamaanteed dadka Soomaaliyeed oo duqa magaalada ee Muqdisho waxa jira dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo danyar ah oo ayaguna sidoo kale loo barakiciyay hadda ninkani waa dadka wuxuu kamid yahay accesska u leh inuu madaxweynaha fariin u qoro ama la kulmo ama la hadlo isagana afkiisa ka sheegay inuu fariin inta u duubay cod ah oo u soo jawaabay oo qoraal u soo qoray waxaan arkay dad badan oo Soomaaliyeed oo madaxweynaha kaliya ku eedeynaya burburinta dadka Soomaaliyeed guryahooda iyo barakicintooda iyo qaadashada sida musuqmaasuq ah hantida qaranka oo leh waxba kama oga ra'iisul wasaare waxba kama oga iska fadhiya waxba kama oga kumana lagu lahaan waxaan ku bilaabay klibka bilowgiisa isagoo difaacahaya guryahaas la qaadanayo oo la burburinayo oo dadka laga gadahayo oo lacagta personalka loo qaadanayo oo leeyahay wariyihii kula diranayo oo kula challenge gareyn kula murmahayo leeyahay ii sheeg sharci sheegahaya hantida qaranka inaan laga dikarin iyo in meel loo maro oo shuruuc loo maro oo dafirahaya shuruucda beeca qaranka waxyaalaha qaranku uu leeyahay si loo gado dafirahaya ama aqoon darraha ka ahaato ama dafiraad ka ahaato iyo ismoodsiin iyo xaqiiqa carar waxa doonta ka ahaatee klibka bilowgiisa ayaan baad ku daawateen waxaan leenahay marka labada meesha ugu sarreysa waa madaxweynaha Xasan Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre labaduba waa qaade iyo qarshi waa laba nin oo isku doon saaran isku warshad saaran shacabka haddii loo qaxiyo waa qaxiyeen haddii la boobay waa wada boobeen haddii hantida qaranka la burbursay waa wada burbursadeen waa laba nin oo wada socda wax kasta oo la haleeyayna waa wada haleeyeen ninka fiican meesha ma joogo dadka Soomaaliyeed markay aan been loo sheegin Xamse Cabdi Barre waxba kama oga waxa la wixii la gato oo hantida qaranka Xasan Sheekh Maxamuud baa gato gid qaato lacagtana qaata waxba kama jiraan waa wada shaqeeyaan haddii uusan musuqmaasuq uusan raalli ka ahayn ra'iisul wasaarihii xukuumadda madaxda xukuumadda weeye hadda ka hor uu hadlo uu sheego wuxuu yiri musuqmaasuq baa hareeyay xukuumaddan wuxuuna ka jiraa musuqmaasuqu hay'ad kasta oo dowladda ayuu ka jiraa waxay ahayd inuu arrintaas sii wado oo arrintan uu ka hadlo yiraahdo qaabka wax loo gadahayo sax maahan oo banaanka iska dhigay isbarraxo ay ahayd waxa marka muuqata oo caddayn cad loo hayaa inuu raalli ka yahay qaybna ka yahay hantida qaranka qaabka in loo gado haddana waad aragteen klibkan bilowgiisa ku daawateen ma rabo inaan hadalkan ku badiyo hadda waxay soo gaartay marka kuleelka soo gaaray dadkii madaxda ahaa oo accesska u lahaa madaxweynaha inay guryahoodii iyo wixii hore u qaateen la burburiyo waxa laga yaabaa inay khayr tahay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay arrinta waxa laga yaabaa inay khayr tahay oo wax hore loo qaatay oo madaxweynaha hore qaateen oo Xasan Sheekh kamid yahay in dib loo soo celiyo oo dawladda imaan doonta dhammaan sifo sharci wixii lagu baxsho dhan dib loo soo celiyo ayaa dhici karta sababtoo hadda aad u baato waagi hore waxyaala yar oo qaaba yar oo la sheego heel baa qaatay iyo heel baa la dhaha jiray hadda laakiin cagta la mariyay waxa laga yaabaa marka inay khayr tahay ka soo qaad marka shacabka Soomaaliyeed waxay u eg tahay adoo meel cidla marahaya in oroob ku helay oo meel gasho weeday 6 bilood baa ka hadlay dawladdan hal adkaysto meel loo carara ma lahan xukuumaddu waa qaabkaas oo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo meesha hadda u hadlo klibkood u jeedeen inuu inkiray qaabka wax looga jiro inuu diiday madaxweynaha waad aragteen meel loo carara marka ma lahan
hadda dadka la haystaa waa dadka madaxda ahaa oo caanka ahaa oo magaalada muqdisho maayar ka soo noqday baa hadda cabanhaya oo meeshiisii asagoo hore u qaatay la burburiyey isagoo weliba madaxweynaha codduwan la hadlay yiri meeshii aniga ii badbaadi baa lagu tunto waxaan leenahay marka 6 bilood u dhiman dowladdan ha loo adkaysto ilkaha la isdhaafsado ha la samro ilaahay subxaanahu wa tacaala ha la weydiisto dowladda